xogayaha cusub سعيد نور جامع waxaan leeyahay ku soo dhawow dawladii hoose waa meel shaqo badanna waad ka timid kula dad gaadiidka wadooyinka maamuleysay insha Allah taala halkana waad ka bixiyay shaqada waa nin saaxiib salaada oo wadaada de iskuulkana waa ka sheegay khadahu gaboobay oo ka sheegay inuu macallin u ahaa marka iskuulkana uu ka shaqeey jiray marka insha Allah taala uma baqanayo halkana shaqo wanaagsan iyo niyad wanaagsan iyo wada shaqeyn wanaagsan ayaa u taala waxaan u sii ducaynayaa xogayii hore oo hadda joogay 3 sano waan u sii ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay halka doonatay xildhibaan inaad noqoto golaha deegaanka aad soo sharaxday ilaa Allah ku siiyo intii joogayna shaqo fiican baan wada qabanay xogayuhu waa mashiinka shaqada dhaqaajiya golaha deegaanku waxay soo qorsheeyaan annaga golaha deegaankana maamula waxay soo qorsheeyaan wixii la qabanayay markay noo soo qorsheeyaan miiska la soo dhigo miisaaniyadda haddaan lacag la soo saarin cidna waxba ma qaban karto mashiinka shaqada dhaqaajiye waxaa soo degmaaya waxaa soo waxiyo meel walo dakhli ka soo baxayo sameynaya waa xogayaha dawladda hoose deedna taasun baa wax lagu qabta baashii oo qorsheysan oo miisaaniyadeysan oo sector walba leh waxaan leeyahay marka isagana waxaan aad ugu amaanayaa muddadii uu nala joogay waxaan leeyahay in ilaahay siiyo xildhibaanka golaha deegaanka Siciid loo baqan maayo kaftan kana maanta waaba la igiga horeeyay halka waa la sii taataabtay meel baan u socdaa meel baan u socdaa waxa laga yaabaa dadka marka loo kala waramo in wax badan la isu qaado anagu waxaan ugu nimid golaha deegaanka Mawlid Weys sanad iyo xogaa buu nala joogo waa huno qodobka Axmed Dagaxaad boo cabato waxay yiraahdeen waa 3 dhadhaarkeegi baa ka maqan Ibrahim Ahmed Rabi ayaa yimid Ibrahim Ahmed Rabi markuu xogaa joogay aad baa loo kaambeyn garay oo waxa la yiraahdaa qolada Hashimnahay kuraasti baan haynaaye walaalaha iyaga kala ma hayaane waxa laga siiyo basasha hadii la sii dhilo way sii dhilanta Ahmed Dagax yimid oo agteeda taagan oo deedna Ahmed Dagax markuu yimid baa la yiri way hayaan Maxamed Farxoogiye waxa dhiman afyaanaga saa la keenay afyaana wasaaraddu baa goosatay cid kaambeyn gareysayba Ali baa la keenay oo waxa la yiri waxa ka maqan imkana Subeer Cili haddana waxa soo kiisaanu igu qoraye oo la yiraahdo ninka xogayaasha naga badbedeli jiray kolka waxa weeye oo tawaaka juxo ku xigay baa yimid Ali juxo ku xigay yimid anaguna qof aan iskhilaafnay waxa jira Ali oo miiriyahana ka baxday taana halkeedaan u deynaya ninka juxa xagga xaafadiina mooye meel xaafadoodii kaambeyn kaga muhiiman iminka markii la fikiray waxa la yiri xaafadda Axmed Dagax ducayaalkoogiyo la siiyo mooyaane si aan la isugu qabsan waxaan u sii sheegayaa Siciid inuu kaambeynku ka yaqaan ninka kaambeyn galaana ay ka xumaanayso ducayaalkii Axmed Dagax baa la siiyay ninka ka daba yimaado adaa ka doontay golahan iyo golaha dambe uu joogi doona anna musharax baan insha Allah inaan golaha dambe soo noqdo maayirna waan u tartamayaa ninka maayir joogay maayir hunbuu tartamayaa haddii aan waayna ka yimaado waanu haneynayaa insha Allah taala waxaan ka rajaynayaa inaan wada shaqeyn doono tadamana haddii Ilaahay yiraahdo